100 milyan ayaa waxay u tartamaysaa konton qof waxa maqlaysiin waa sax waa lacag hore loo maqlin kaliya qof walba inuu socdo si aan joogsi lahayn mana jiro dhammaad waxaa la sheegay in haddii aad istagto ama agaabiso aad isla markii dhimato taasi waa wax aan macquul lahayn laakiin tartankan waa dhab hal qof kaliya ayaa badbaadaya socod aan dhammaad lahayn iyo guulayste adiga kaliya dhamaysa muuqaalkan iyo ilaa dhammaadka like star muuqaalka subscribe le youtube-keena shakra films nooc kale oo Mareykanka afgaami military ayaa dalka ka dhigay nidaamka litalisa cabsi leh nin lagu magacaabo Demoja ayaa ah hogaamiyaha kaliya ugu dambeyn xukuumadii waxay abuurtay tartan dile oo la yiraahdo socodka dheer halkaas uu heli doono qofkii guulaystaha sumcad hanti iyo haribitaan uu doono dhacdadan oo dhan ayaa si toos loogu sii daayay telefishinka qaranka waxaana dad badan u arkaan fursada kaliya ay kaga baxsan karaan faqriga mutadaawiciin ayaa isdiiwaan geliya waxaana baqtiyaan nasiib lagu doortaa konton qofka kaliya ee ka socda gobolka Mainware oo hooyadiisa Geeni ku kaxaynayso goobta tartanka jawiga gaariga waa mid kacsan Geeni waa wax rajeynaya si Ray uu noqoto go'aankiisa balse Ray uu sheegay go'aankiisa inuusan ahayn markay gaaraan goobta Geeni si adag ayuu u habsadaa Ray iyadoo uu yiisa kadibna way sokontisaa Ray wuxuu dhex maraa albaabka hore wuxuuna la kulmaa Peter oo aad u saaxiibtinimo badan inta badan wiilasha kale iyaguna waa saaxiibtino waxayna bilaabaan wada sheekays iyagoo sugaya bilowga tartanka Carly si joogta ayuu u socdaa isagoo qarinaya walbaharkiisa kuwa kalena waxay ogaadeen inuu u muuqdo mid aad u yar wuxuu sheeganayaa inuu 18 jir yahay balse cidna ma rumaysanayso wax yar kadib Demoja ayaa yimaada wuxuuna mid kasta siiyaa calaamad bir ah oo leen lambar isagoo sheegaya inay hadda yihiin rag wuxuu jeediyaa khudbad isagoo sheegaya in socodka dheer loo sameeyo in lagu dhiirigeliyo qiimaha shaqada ee dalka oo dhaqaale ahaan dhibaato ku jiray dalka kadib sanad kasta kadib tartanka wax soo saar ayaa kordha sidaas darteed Demoja wuxuu aaminsan yahay in dhibaatadu tahay caajisnimo intuu hadlayay tartamayaasha waxaa la siiyay jijimo cabirada xawaaraha socodkooda kadib wuxuu sharaxayaa xeerarka qof walba inuu socdo ilaa hal qof ka haro manager qad dhamaad waa inay ku socdaan xawaare gaar ah 3 mil saacadii haddii ay ka gaabiyaan digniin ayaa la siinayaa haddii ay 10 ilbiriqsi gudahood xawaaraha ku six waayeen digniin kale ayaa la siinayaa 3 digniin kadib waa la toogdaa haddii jidka ka baxaan isla markii waa la dilayaa markuu uu dhameeyo wuxuu dhigayaa inay sacbiyaan kadibna wuxuu hawada u ridaa rasaas si uu tartanka u bilaabado wiilashu way bilaabaan socodkooda gabaariga militarigana way raacayaan iyagoo duubayaan bilowga dad yar ayaa daawan kara booliis ayaa salaamaya gaarina wuu ka xanaaqaa uu aflagaadeeyaa marka hore qof walba uu islaalinayaa balse markay gaaraan 5 meel wada sheekaysi ayaa bilaabma Stevens ayaa si yar u gaabiya oo digniin ayuu qaataa geeri wuxuu istaagaa si uu kaba u saaro dhagax wuxuuna ku dhow inuu la togdo balse waqtiga ayuu ku badbaadayaa 7 meel kadib waxay ka hadlaan abaalmarinta Arthur wuxuu sheegay inuu lacag u yimid balse Ray wuxuu leeyahay wax ka muhiimsan ayaa jira wuxuu dhaleeceeyaa nidaamka oo sheegay in dadka lagu qasbay faqriga sidaas darteed aysan run ahaantii doorasho lahayn Carly ayaa xanuun lugaha ka dareema wuuna gaabiyaa Ray iyo Peter ayaa caawiya balse ugu dambeyn wuu dhacaa waxaana la togdaa dhacdadaasi waxay gilgishay Ray oo isna digniin qaatay markay ay sii socdaan dhacdooyin kale oo murugo ayaa dhacaya wiilal xanuunsada qaar la dhacaya qaarna la dilaya markay ay xeerarka jabiyaan geeri wuxuu noqdaa mid xun oo kicinaya dhibaatooyin xitaa sababa dhimashada wiil kale markay gaaraan 35 meel Demoja ayaa soo muuqda isagoo ka hadlaya ereyo qurxoon Ray wuxuu bilaabaa inuu hurdo wuxuuna ku riyoodaa hooyadiis balse digniin ayaa lagu siiyaa markuu gaabiyo Peter ayaa ku qasbay inuu socdo ugu dambeyn Ray wuxuu yeeshaa 2 digniin kadib si lama filaan ayuu u turantooda uu qaataa digniinta saddexaad taasoo ka dhigan inuu hadda socdo 3 saacadood aan qalad lahayn si digniinta looga tirtiro Peter ayaa isku dayaya inuu dhiirigeliyo balse Ray wuu walwalsan yahay oo xanaaq ayuu ku jawaabaa isagoo leh Peter iska dhigaya inuu daneynayo isla markaas kooxdu waxay gaataa buur aad u dheer oo socodka ka dhigaysa mid aad u adag dhammaan way daalaan wiilal badanna way dhacaan markaasna waa la togdaa Ray wuxuu isku dayaa inuu iska iloobo dhimashada ka dambayso balse Geeri ayaa ku jeesjeesa ugu dambeyn Ray wuu gaabiyaa laakiin Peter ayaa waqtiga saxda ah qabta Ray wuu mahadceliyaa wuxuuna ka raaligeliyaa xanaaqii hore subaxdii waxay gaaraan 59 mayl dhimashadii badneed kadib waxaa haray 18 tartame markay gaaraan 67 mayl Hank wuu tabar daran yahay Peter wuxuu isku dayaa inuu caawiyo balse Hank wuu ka xanaaqayaa dhanka kale Richard wuxuu la socdaa canqow qaloocan ugu dambeyn wuu gaabiyaa Ray ayaa dhiigiliya balse Richard wuu dhacaa
askarigana wuu tukadaa iyadoo laba carruur ah ay dhowaanayaan. Markay gaaraan 100 mayl, Demoja ayaa mar kale yimaada. Wiil ayaa isku dayaya inuu baxsado, balse isla markii waa la toogdaa. Markay gaaraan 103 mayl, waxay ka hadlaan rabitaankooda. Peter wuxuu doonayaa laba guuleyste. Reyna wuxuu doonayaa inuu nidaamka bedelo, balse taas looma ogolo. Roob culus ayaa da'ay fiidkii, Reyna wuu daalay. Peter ayaana caawinaya. Subaxdii xigtay waxay gaaraan 144 mayl. Arthur ayaa isku dayaya inuu saxaro, balse digniin ayaa lagu siiyaa. Rey wuxuu u sheegaa Peter sheekada abiis oo ahaa geesi, balse la dilay kadib markuu u diiday inuu daacad u noqdo Demoja. Rey wuxuu qirtay inuu tartanka u galay si uu u helo qori uu u dilo Demoja. Markay gaaraan 170 mayl, xaaladdu way sii xumaataa. Wiil dhaawacan ayaa la jiitaa, ugu dambeynna la toogdaa. Mid kale ayaa maskaxdiisa ka baxa oo jidka ka baxa, markaasna waa la toogdaa. Markay gaaraan 201 mayl, Hank wuu daalay si uu la kac ayuu askarta ugu socdaa, markaasna waa la toogdaa. Arthur aad buu ugu murugoodaa. Rey ayaana ka badbaadiyaa inuu digniin qaato. Subaxdii xigtay waxaa harayaan 6 wiil, waxayna isku raacayaan inuu guuleysta uu caawin doono xaaska Hank. Gary ayaa ka quumeeya falalkiisii, wuxuuna ballan qaadaa inuu caawin doono. Markaas waa la aqbalaa, balse dambiyadiisa ayaa ku culus. Ugu dambeyn aytiisa ayuu dilo. Askartana way toogdaan sida caadiga. Markay gaaraan 260 mayl, waxay isku dayaan inay heesaan. Maalintii shanaad waxay gaaraan 280 mayl, waxayna maraan magaalada Leigh. Rey wuxuu arkaa hooyadiis, wuxuuna isku dayaa inuu u ordo, balse Peter ayaa badbaadiya. Rey wuxuu ka raaligeliyaa hooyadiisa oo ooyaya. Peter wuxuu ka shakeeyaa noloshiisa adag, waalidkiisa way dhinteen. Adeerkiisa ayaa garaac jiray, wuxuuna ku noolaa wadooyinka. Wuxuu ballan qaaday inuu iftiin raadin doono. Haddii uu guuleysto, wuxuu caawin doonaa carruurta agoonta ah. Markay gaaraan 306 mayl, waxay go'aansadeen inay iscaawin joojiyaan. Arthur sankiisa ayaa dhig baxay. Ugu dambeynna wuu isdhiibaa oo askarta ayaa dilaan. Habeenkii saddexdii ugu dambeysay ayaa haray. Stebbins wuxuu sheegay inuu yahay wiil uu dhalay Demoja, balse wuu daalay wuu istaagaa. Askartuna way toogdaan. Roob ayaa da'a. Reyna wuxuu qirtaa inuusan mar dambe ka baqin dhimashada. Markay gaaraan 331 mayl, dad badan ayaa soo baxay oo sacbinayaan. Peter wuxuu rabaa inuu isdhiibo si Rey uu la kulmo, balse Rey wuu diidaa. Si lama filaan ah, Rey ayaa istaagay gadaashiisa. Askartuna way toogdaan. Peter wuxuu isku dayayaa inuu soo noqdo, balse waa la jiidaa maadaama uu yahay guuleystaha. Rey wuxuu ku yiraahdaa wuu jecel yahay. Ka hor intan uusan Demoja u dilin, dadka way sacbiyaan. Peterna wuu burburaa. Demoja wuxuu weydiiyaa rabitaankiisa. Peterna wuxuu dalbadaa qori. Markuu uu helo, wuxuu si degdeg ah ugu jeediyaa Demoja, wuxuuna yiraahdaa tani waa Rey darteed. Kadibna wuu toogdaa. Kadib qoriga ayuu dhigayaa wuuna iska baxayaa. Sheekadan waxaa qoray Cabdishakuur, waxaana codiyay anigoo Cabdullaahi waxaana edit gareeyay Isla Cabdishakuur. Sheekadan waxaa la dhahaa Dalan Walk. Haddaa ka heshay muuqaalka like YouTube-kan Shakra Film subscribe intaan muuqaalkan iyo muuqaalada kale iska arkayno. Wa mac salaama.